ilaahay subxaana wa tacaala wanaagyaasha dadka uu ku abaalmariyo ama waxyaabaha uu siiyo waxa ugu qaalisan uguna sarreeya sabirka. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam, lama siiyo axad siisma ka khayr badan kana waasictinimo badan sabirka. qof allaala qofka sabir lagu arsuqo, khayr adduun iyo mid aakhiraa lagu arsuqay. sabirku waa waxa keliya ee qofka intuu adduunka joogo wuu uga badbaadi karo musiibooyinka, dhibaatooyinka iyo wax allaala wixii mashaakilaad ah. sidaa darteed buu ilaah yidhi, yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu, dadka iimaanka laga helayo sabra, wasaabiruu, la sabirta magaalada ama idinkaa mu'miniin ahee ka sabir badiya. waraabituu, xirxirnaada diinta, taacada alleh, jihaadka, khayrka, wanaagga ku jilib xirta. waataquu llaaha, ilaahayna ka cabsada intaa haddaad samaysaan, lacallakum tuflixuuna, inaad liibaantaan baad mudan tihiin ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. liibaantu maxay ku timid? sabir bay ku timid. liibaan maxaa lagu helay? sabir buu ku yimid. sidaa darteed sabirku waa qayb weyn oo diinta markaa ka mid ah. ilaa 9 meel oo kale ayuu kaga hadlay ilaahay kitaabka qur'aanka sabirka. akthar min 90 mara ayuu kaga hadlay ilaahay sabirka. sidaa darteed ayaa sabirku wuxuu yahay waxa keliya ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda uu ku siiyo jazaha iyo abaalgudka weyn. qofkii aan sabir lahayn adduunka ma joogi karo. qof aan sabir lahayn diinta kuma dhaqmi karo. qof aan sabir lahayn jannada ma raadin karo. qof aan sabir lahayn cadaabka kama carari karo. sababtu waxay tahay wax walba sabirku isugu hoos imaanayaa. istaciinuu biالصabri waالصalaaة, sabirka iyo salaada kaalmaysta buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. istaciinuu biالصabri waالصalaaة, macnaha umuurihiina adduun iyo ta aakhiraba sabir u kaalmaysta. istaciinuu biالصabri waالصalaaة, waayo ina allaha maca wainaha lakabiiratun ilaa cala alqaashiciin. salaadda way ku culus tahay oo maba la imaan karo, mana samayn karo, ma gudan karo ilaa dadka khushuuca maahane. macnaa waa dadka sabra. khushuuc wuxuu ku imaan karaa inaad sabirto, wuxuu ku imaan karaa inaad saabir noqoto. sidaa darteed ba aqsaamta sabirka inta badan fuqahadu waxay u qaybiyaan 3 qaybood. qaybta koowaad waa inaad ka sabirtaa wax allaale wuxuu ilaahay diiday. ta labaad waa inaad ku sabirtaa diinta alla subxaana wa tacaala, cibaadada gudashadeeda. midda saddexaadna waa inaad ku sabirtaa masaa'ibta, maqaadirta iyo waxyaabaha dhacaaya. 3daa markaad isku soo ururisood isugu timaadaan oo intaasi aad la timaado, ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa waxaad ugu dhaqmaysaa sidii markaa loogu talagalay. dadka sabir la'aanta ahaa ama aan sabraynin, qada iyo qadar aan aqoonin, mar allaala markay ku dhibaatoobaan adduunka way isdilaan. qaar baa suncada, qaar baa bastoolad isku dhuftaa, qaar baa isdaldala. lee sababtu maxay tahay? waa sabir la'aan. sabir la'aantaa keeni kartaa. qofku waa inuu garan karaa alqada waalqadar, waa inuu ogaan karaa waxaan uu waayeyna inuusan ilaahayba ugu talagelin subxaana wa tacaala, waxaan uu helayna inuu ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala. likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa aataakum. ilaahay wuxuu u jaangooyey shay walba oo horay loogu qalqay. waxay tahay wixii idin yimaadana inaadan ku farxin, wixii aad weysaanna inaadan ka tiirin. ma dhib baa kugu dhacay, ilaahay baa kuu qadaray subxaana wa tacaala. maa asaaba min musiibatin ila biidni illaah, ma asiibto musiibo ilaa ilahay idinkii maahan subxaana wa tacaala. waman yu'min biاllaahi yahdi qalbahu, qofkii ilaahay aaminana ilaahay qalbigiisuu hanuuninaya subxaana wa tacaala. waxaa qalbiga loo geliyaa sabir, waxaa qalbiga loo geliyaa adkaysi, waxaa qalbiga loo geliyaa dulqaad. waالصabru diyaa, sabirku waa iftiin buu dhahay rasuulka sal alla alayh wasalam. waa diyaa, waa iftiin. qofku wuxuu u iftiimiyaa adduunka iyo meelaha uu marahayo, jidka mustaqiimka ee khayrka, wanaaggii waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala
agtiisa markaa yaala. sidaa darteed baa sabirku walaalayaal wuxuu ka mid yahay waxyaabaha loo kaalmaysto umuuraha adduunkii aakhiro. yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالصabri waالصalaaة ina allaha maca asaabiriin. ilaahay saabiriintuu micigooda yahay subxaana wa tacaala. meeqaa la abaalmariyaa qofka saabirkaa ajirkiisa? qofka saabirkaa muxuu ilaahay siiyaa subxaana wa tacaala? yaa yaqaana? waa ma jirto. innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab. ilaahay saabiriinta ajirkooda wuxuu siiyaa xisaab la'aan. sidaa darteed baa soonka iyo ramadaanku waxaa lagu tilmaamaa shahru sabr. asagana lama yaqaana abaalkiisa ilaa ilaahay maahane. waa rasuulku tilmaamay, ilaahna xadiisulqudsi uu ku yidhi kullu camal ibni aadam lah ila asiyaam ama ila asawm fainahu lii wa ana ajzi bihi. ilaan sabirkuu ka mid yahay. lama yaqaana inta loo abaalgudo, lama yaqaana intuu ilaahay siiye subxaana wa tacaala, lama yaqaana inta loo laalaabo. bacdamay xaaladdu sidaa tahay ayaa rabbiga khaaliqa ah wuxuu siiyaa qofka saabirka abaalkiisa xisaab la'aan. diinta oo lagu dhaqmo sabir bay u baahan tahay. inaad aroortii kacdo, inaad qabowga ku weyse qaadato, inaad salaadda aaddo, inaad masaajidka u socoto, dulqaad bay u baahan tahay. bustaha kugu dadan, gabadhaa dhinacaada jiftay xaaskaaga ah, nalkaa kale cayncaynkaee dushaada ka shidan, inaad intaad bustaha iska rogto oo tuurto, gabadha aad ka soo tallaabsato, aad biyaha qabowga ku weyse qaadato, kadib aad masaajidka u saamay tallaabo qaaddo, yaa samayn kara? ilaa saabir maahane, ilaa qof sabraaya maahane. ilaa ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala wamaa yulaqaahaa ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaahaa ila duu xadin cadiim. ilaa qof sabra maahane, qof adkaysi badan maahane. sidaa darteed buu rasuulku yidhi alaa adullukum ma idin tusiyaa wax dembiyada lagu tirtiro, calaa maa yamxu allaahu bihi alkhataaya, darajooyinka lagu kor qaado, dembiyada lagu tirtiro ma idin tusiyaa? qaaluu balaa yaa rasuula allah. haabay dheen rasuulka ilaahayo. muxuu rasuulku u jawaabay ee uu yidhi? wuxuu yidhi waa isbaaqi alwuduu cinda almakaarih, waa waysaqaadka oo lagu faajafaajoodo, waa xibnaha oo si fiican waysqaadka loo gaargaarsiiyo marka makaarihda iyo dhibaatada ay jirto. waa qabowga. waayo qofka qabowgu markuu jiro way adag tahay inuu janaabo ka qubaysto, way adag tahay biyaha inuu ku weyse qaato. weliba rasuulku wuxuu ku tilmaamay waxyaabaha dembigana lagu tirtiro, darajooyinkana lagu kor qaado. isbaaq waa ku xeel dheeraasho, waa in meel kasta oo jidhka ka mid ah biyaha la gaarsiiyo xilliga qabowga daran uu markaa jiro. cinda almakaarih waa tallaabooyin fara badan oo masaajidka loo tallaabsado. ta saddexaad waa intidaari asalaa, waa in salaad lagu suga bacda asalaa. salaad kadib maqhrib baa tukatay, masaajidkaad fadhiisanaysaa ilaa cishaa'iga laga gaaro. fadalikum alribaat, waa xirxirnaan, waa adagoo ku jilib xirtay ilaahay taacadiisii diintiisa subxaana wa tacaala. yaa awoodi karaa intuu duhur tukada ilaa casr inuu masaajid fadhiyo naga mid ah? waa ma jiro. 24 saac sida ximaarkaan u shaqaynaa. 24 saac qaaraa waxaa awoodi la inay kabaha iska bixiyaan, kobaha inay iska siibaan. qaaraa karila say u socdaan ayagoo tacbaanay sariirta ku tuurma ayagoo kabahooda markaa qaba. subxaanaka yaa ilaahay. aaway fadalikum alribaat. dad waxaan noqonay dad adduunye ah, waxaan noqonay dad ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa aan shaqii waxyaaba ku lahayn. habeenkiina waxaan u jifnaa sida mataqaanaa, waxaan u jifnaa sida kilaab, maalintiina waxaan u shaqaynaa sida ximaar. dadka hore maxay ahaan jireen? waxay ahaan jireen maalintiina fursaaniin, habeenkiina ruhbaaniin. markaad magaalada madiina dhex marta saqda dhexe danan baad maqlaysaa, shinida guuxeedoo kale ah. kuwa tasbiixsana, kuwa qur'aan buu akhrinaa, kuwa sujuudsan yahay. magaalada madiina markaad saa u dhex marta habeenkii, xilligii hore, xilligay saxaabadu noolaayeen, xilligii dadkii qiimaha badnaa ay joogeen, waxaad u malaysaa dananka iyo dhawaaqi waxyaabaha ka soo baxaya shinida markay malabka dhalayso say u guuxdo oo kale. kuwaa ooynaaya, kuwa mataqaanaa tasbiixsanaaya, kuwa ilaahay baryaaya subxaana wa tacaala. aman huwa qaanitun aanaa'a allayl saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbihi. qof taagan aanaa'a alleyl saacaadka habeenkiisa, saajidan waqaa'iman, marna sujuudsan marna taagan. muxuu samaynaa? yaxdaru alaakhira, aakhiruu ka digtoon yahay.
wayarjuu raxmata rabbihi rabbigii naxariistiisana waa rajaynayaa. waa labada hadaf ee ugu waaweyn, in ilaahay cadaabkiisana laga baqo, ilaahay nimcadiisii jannadiisana la rajeeyo. dad saas ahay ahaayeen, ma ahayn dad say maantoo dhan u shaqayn. xataa waxaan shaqaynayna wax nadiif oo xalaala hadday ahaan lahaayeen, wallahi khayr baan gaari lahayn. xataa haddii xalaashii wanaaggaanu ku dadaali lahayn, xataa haddaan ahaan lahayn kuwa markay shaqaynayaan xilliyada salaada tukada cala alaqal. wax kale sunno xataa ayaanan gudanin, salaadiina la gabay oo mashiin baa shidan, lagumaba oggolaba. jalbaab laguma shaqeeyo, laguma oggola intaqaanaa inaad xijaabkaaga ku shaqaysato, laguma oggola wax xalaala inaad ku shaqayso. wixii saas ahaana ku aakhira beelnay kuna adduun beelnay. saa darteed baa dhib iyo mashaakil iyo rafaad iyo waxyaabo kalea lagu dhex sugan yahay. rasuulka sala allahu calayh wasalam magaalada madiina markuu habeen intuu falanqeeyo arrin muslim ay soo baxaan, mar kasta uu meel soo maro saxaabi baa ku tukanaya. suu u soo socday muxuu yidhi cumar ibn alkhataab, habeen baanu fiidsanay oo waxaan ku dahnay ani iyo abuubakar iyo rasuulka buu yidhi arrin danaha muslimiinta ka mid ah. mar allaala markaan ka soo baxnay masaajidka aan soo marnay waa mugdi, cabdullaahi bni mascuud baa taagan radia allahu tacaala canhu. qur'aan buu akhrinayaa. rasuulku waa fadhiistay waana dhegaystay sala allahu calayhi wasalam. saasuu markaa u dhegaystay, saasuu u dhegaysanayaa. mar allaala markuu qiraa'ada dhammeeyey ayuu yidhi qof allaala qofkii raba inuu qur'aanka akhriyo asagoo radbi ah suu ku soo degay oo qoyan, falyaqra' biqiraa'ati ibni ummi cabdi radia allahu canhu ow kama qaala sala allahu calayh wasalam. qofkii raba inuu qur'aanka u akhriyo asagoo radbi ah oo qoyan suu ku soo degay, qiraa'ada ibni ummi cabdi ha akhriyo. waa cabdullaahi bni mascuud. mar allaala markuu dhammeeyey qiraa'adii iyo salaadii waa fadhiistay. muxuu bilaabay inuu ilaahay baryo, inuu ilaahay tuugo. rasuulkuna uu leeyahay sal tuct, weydiisa waa lagu siinayaa, weydiisa waa lagu siinaa, weydiisa waa lagu siinaa. waa xilli ilaahay uu soo nusuulo ee uu soo dego ee uu leeyahay yaa i weydiisanaayo oo aan siiyaa, yaa i magangelaayo oon magangeliyaa, yaa i baryaaya oon baryaha ka ajiibaa. saltucda weydiis waa lagu siinayaa. cumar muxuu yidhi wallaahi waan u bishaaraynayaa ibni mascuud subaxii markii la gaaray wuu soo degdegay, abuubakar baa uga soo hormaray radia allahu tacaala canhu. ilaa cumar fartaqayna uu yidhi abuubakar weligay lama baratamin, khayrna kulama baratamin, ilaa waa iga hormaraayey. abi muusa alashcari ayuu soo maray nebi moxamed sal alla alayh wasalam asagoo qur'aan akhrinaya. uma jeeda meesha mugdi waaye. abuu muusa alashcari mar allaala markuu qur'aanka akhrinayay rasuulku uu dhegaystay sala allahu calayh wasalam. mar allaala markuu soo baxay subaxii markuu muxuu yidhi haddaad ogaan lahayd ama aad arki lahayd dhegaysigii aan dhegaysanayay xalay qiraa'adaada. abi muuse fartuu dhexda ka qaniinay, markaasuu yidhi haddaan ogaan lahaa rasuulkii ilaahayow inaad i dhegaysanayso waan taxdiirin lahaa, qur'aanka waan sii qurxin lahaa. rasuulku muxuu ku yidhi abi muusa laqad uutiita, waxaa lagu siiyey mizmaar cod oo min mazaamiiri aali daawuud codkiisa ka mid ah. waa nebi daawuud calayhi salaam. nebi daawuud cod qurxoon oo qurux badan baa la siiyey. mar allaala markuu zabuur akhrinayo kitaabka zabuur nebi daawuud, shimbiruhu ma socon jirin walaalayaal, shimbiruhu ma socon jirin. yaa jibaalu awibii macahu waatayr waalanaa lahu alxadiid. nebi daawuud calayhi salaam maxaanu ku nidhi buurihii la celceliya oo tasbiixda la qaada oo la wadwada. buuruhu way tasbiixsanayaan. waa mar allaala markay codkiisa maqlaan, waa mar allaala marka codkiisuu ku akhrinayo kitaabkii zabuur. sidaa darteed ayuu nebiga sal allahu calayh wasalam abuu muuse wuxuu ku yidhi waxaa lagu siiyey codadkii aali daawuud markaa ka mid ah. wallaahi buu yidhi haddaan ogaan lahaa inaad nebi moxamedow i dhegaysanaysa qiraa'adayda mirdhaxyaan u samayn lahaa, waan qurxin lahaa qur'aanka, saasi ka sii fiican baan u qurxin lahaa. habeen kale asagoo soo socda rasuulka sal alla calayh wasalam wuxuu soo maray cumar ibn alkhataab oo salaad tukanaya oo qur'aan akhrinaya, qaylinaya, cirka ku tolaya qiraa'ada.